وداد ku soo dacayo isla markaana rabtay biyaha soo galay inay iska dhurto aqligu ma siinayo meeshay biyuhu ka imanayaan horta bal awd waxaan la yaabay maamadaasi markii ay heesta qaadaysay dadka qaar baa qoslayay sacab baa la sacabinayay waxa laga hadlayo waa qarax waxa laga hadlayo waa dhimasho waxa laga hadlayo waa qaranguur war damiirkii miye nolosheeni ma waxay ku koobmatay munaasabad intaan isugu nimaadno oo inuu isku sacabino oo inuu ismahadino dabeetana laga kala tago ilmaha aniga kalxamahayga ku jira maxaan u sheegi doonaa adigu inuu ilmaha dhabarkaaga ku jira maxaad u sheegi doontaa macallin baa soo istaagay wuxuu ka sheekaynayaa 7 libaax inuu soo galay afka inaba waxay soo qoraysaa wa alaykum salaam s wa sa ya iyo wa haye maxaad u sheegi doontaa afkeeni baa tagay damiirkeeni baa tagay dawladeeni baa tagtay oo dadnimadeeni baa tagtay iyagoo laga hadlay waxa la xiisa iyagoo laga hadlay geeri iyo burbur iyo baaba waa qaarkeed isku qoslaya wada maqana joogeen haddaba in la isku yimaado dantu maaha in la hadlana dantu maaha in la sacabiyo dantu maaha in la qiroodana dantu maaha dantu waxa weeye dad yahow waan daalay oo waan dawyownay oo waan dawaqnay oo waan duminay oo waan dirnay oo waan gowracnay calankeena iyo ciideenu way ooyayaan ummadda Soomaaliyeed waxay leedahay calan qurux badan waxaynu leenahay af hodan ah afkeenu isagoo oo wadankiisa jooga caasimadii dalka isagoo jooga ooyaya muxuu ooyaya ina yaro dabad uu ma baraakad furtay af Ingiriisi dadkii baraya macallin baa iskuul samaystay manhajkiisu waa Ingiriisi iyo Carabi annagu ma Carab baan oo ma English baan nahay oo anigu ayeeyay maxaan u sheegayaa marka aniga la soo baray macluumaad ayeeyay ilaahdo hooyo ayay waxaan rabaa inaan kuu sheego macluumaadka dunida oo igu tiraahdo maanta macluumaad muxuu yahay bal maxaan u sheegaa aan kaarba haysatay waxaan ahay qof dhan oo qaran leh waxaan ahay qof dhan oo af leh haddana ooman baan ahay waxaan ahay gabadh la dhalatay rag geesiyaal ah haddana waxaan ahay gabadh markasta oyda waxaan ahay gabadh markaan arko ummadaha iyo hablaha aniga qayrkay ah ee laanta ku sita astaanta qarankooda ama dalkooda iyo dadkooda darajo kule waxaan ahay qof oyda baan waxa aniga dhashay hooyo markay aragto inamadayada iyo wiilashayada maalin kasta la gumaadayo ee aragto inamada caalamka oo loo tirtirsiinayo jigdis iyo kubad hooyo kubatay baa dhashay aniga waxaan ahay aabbo waxay dhalay aabba ayaan daran waxay dhalay aabbaha ubadkiisa maalin kasta hortiisa lagu garaacayo haddana dadkeenu sacab iyo salaam bay ku jiraan ummad iyadoo ay sidaa u halaagsan tahay haddana waxaynu nahay ummad aan is ogeyn oo maran waxaynu nahay ummad faanaysa oo wada faaruq ah waxaynu nahay ummad qalbigu u qalalay abwaanadii way daaleen dadkii heesayay way daaleen culimadii way daaleen waxgaradkii way daaleen waa ilaa goorma Soomaaliya waa ilaa goorma iyadoo halaagaasi jiro haddana dadka reer Muqdisho ugu siixin dadka markay sidaas leeyahay waxa weeyaan maska madaxa laga dilaa Soomaaliya waxay hagaagaysaa markaad guriga Muqdisho hagaajisaan waxa leeyahay Soomaaliya ma kala goobo Soomaaliland ma jirto lagama tagaysaa madaleeyay xagee la idinku imanaya marka madakanaad gubaysaa ma la idinku imanaya hay dabiirkiine ma la waaye 4-3 qof oo yiraahda waxaan ahay Soomaali waxaan u dhimanayaa Soomaali waxaan ilaalinayaa sharafta iyo dhaqanka Soomaaliyeed hablaha Soomaaliyeed mid baa inoo taala marka awal hore gubaada dumarku way geli jireen raguna way geli jireen gacalkayo gob hadii aad tihiin gayaanka ragga Soomaaliyeed waa inaan iska daynaa gurkiina ma keena waa inaan dhahnaa ni Soomaaliya oo aan ku diyaarin karin guri aad sharaf ugu noolaato ilmahayga anigu aan ku dhali doono halkan haddaana wahay inuu bari sabab la'aan dhimanayo haddaana wahay noloshan ku noolahay ee mugtiga inuu ku noolaanayo maxaan ka dhawayaa marka